بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a conflict of interest waxaan ku qeexi karnaa conflict of interest ama jiritaanka dana iska hor imaanaya waa marka qof ama wax ay leedahay dan u gooni ah oo ay rabaan inay meel mariyaan balse aysan tixgelinaynin maslaxadda guud ee shirkadda ama dadka daneeya jiritaanka shirkadda ee loo yaqaan stakeholders maadaama ay jirto dan u gooni ah qofkaas ama kooxdaas ma qaadan karaan go'aan ka fiyow tusaale qof ka tirsan mas'uuliyiinta shirkadda ayaa waxa uu la leeyahay xiriir shakhsi ah shirkadda laga soo qaado sahayda shirkadda ama shirkadda supplierka ah xiriirkaas waxa uu noqon karaa inay yihiin ehel ama asxaab dhanka kale sida nidaamka ah shirkadaha waxa ay leeyihiin guddi u xil saaran inay qiimeeyaan supplierka ugu roon shirkadooda balse hadda lama sameynayo habraaci u deganaa shirkadda ee waxa alaabta laga soo qaadayaa qofkii ay asxaabta ahaayeen laga yaabe in haddii si sax ah loo shaqeeyo la heli lahaa shirkad ka fiican shirkaddan hadda lagu naasnuujinayo asxaabtinimada ama ehelnimada midaas oo kale ayaa waxaa loo yaqaanaa conflict of interest waayo lama fiirin maslaxaddii guud ee shirkadda ama dowladda ee qofkan go'aanka iska gaaray ayaa maslaxaddiisii ka dhex arkay arrinkan haddaba si looga fogaado ama loo yareeyo maslaxadahan iska hor imaanaya waa muhiim in shirkadaha ay leeyihiin shuruuc iyo nidaam la raaco oo laga barax tiro nintooxsiga ama in qof gooni ah maslaxaddiisa la eego midaasoo ka hor imaanaysa maslaxadda guud waana in lagu shaqeeyo anshax wanaag midaas oo horumar adduun iyo mid aakhiraba lagu gaari karo micnaha stakeholders fadlan ka dhegeyso lifaaq hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo